heritage maxad u hanqaltaagaya in uu maruun talada dalka uu dib ugu celiyo hogaamiyihii doorashada looga guuleystay 8 Febraayo 2017 waxa ay toddobaadkan ku qabteen Garowe kulan hawle dharaara badan lagu haasaawayay kadibna hadallo hore u qornaa laga soo saaray musharaxiinta damaca madaxweyne leh ee halkaasi tagay bilowga Septembarkii hore si ay dood uga dhiibtaan kulan aysan midihiisa kaalin hore ku lahayn waxa uu waagu u bariyay kolkii madasha aragti wadaaga Soomaalida ee heritage ay qabanqaabisay ay isku badashay hoolka ololaha hogaamiyihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud kala haad ayaa ku dhacay musharaxiinta qaarkoodna hadalka ayaa laga ilaaliyay kuwa warkooda ayaa hoos loo dhigay qaar kalena hadka dambe ayaa hadalka laga qarsaday marka laga reebo qaar qabsaday hadalka goor muhiim ah isla markaana jeediyay aragtiyo aysan kooxdu ku faraxsanayn dooduhu ma ahayn kuwa gaarsiisna heerka aqooneed ee la qoray iyo kan laga rabay dhammaan waxay u muuqdeen kuwa laga soo haaneeday casharada cambaaraynta ee shiikha dhiigga cusub kooxda isku magacawday mar kalena doonaysa inay hanaanka dalka qabsadaan hagardaamooyinkii ay la kulmeen musharaxiintii soo xaadireen madasha ayaa inta shirku socday waxaa sii dheeraa in hadal nuquleedka la soo saaray aysan ka warhayn kana ogaadeen baraha bulshada qaar ka mid ah hoolka ayaa lagu casumay koox diyaarsan oo su'aalo la sii siiyay weydiinayay kooxda doodaysa dad badan oo si xor ah u soo xaadiray madasha waxaa laga meeriyay makarafoonka waxaana si ula kaca loo naadinaya magacyo si macallin dugsi quraan jooga oo cashar bixinaya dareen guux ka dhashay oo qaabka ay u agaasintay heritage madashan halka dhinac ka socota waxay keentay hoolka la faarujiyo dadku ay sawirro iyo xayeysiin ku samaystaan boorarka la xardhay taas oo ay heritage dalbanaysay in ka badan 13 dadka wax ku qoro Facebook 22 dhalinyaro reer Twitter ah iyo kalkaaliyaashii hore ee madaxweynaha xilka looga guuleysay ayaa si isdaba joog kaalin ugu lahaa faafinta ajandayaasha qarsoon ee heritage dhalintana waxa ay ka gadeeyeen ka qaybgalayaasha aragtidii qabyo ee ka sii horeysay 6 tiir ee dalka soo maray oo diiwaanka taariikhdooda darbi kasta yaallo maalintii koobaad ayaa xirantay shirkuna waxa uu noqday madal warbaahineed oo laga baahiyo ololaha kooxda heritage iyo agaasinka qabanqaabada ee Puntland ka socdayba waxa la diiday saxaafadda xorta ah in afaafka hore ee shirka ay wax ka tamiso dhammaanna waxaa lagu amray inaysan waraysi ka qaadin dadka ka aragtida duwan labada nidaam ee isgarabsanaya caajiskii ka dhashay ololaha shakhsiyeysan ayaa xiisaha ka qaaday kulanka waxaana la gaaray maalin aan cidna soo xaadirin musharaxiinta la marti qaaday waxa ay majabax soo aadeen magaalada iyo martiqaadii ay u fuliyeen dadka gudaha Garowe si ay uga iibiyaan aragtidooda siyaasadeed mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka kana mid ah musharaxiinta madaxweyne oo hore uga tirsanaa kooxdii dam jadiid ayaan ka soo xignay in heritage ay hadimo u dhigtay waxa uu dad xafladiisa ka soo qaybgalay u sheegay maalin ka hor inay marxaati ka noqdeen musharaxnimada wadaadka ay wanaanta mar soo wada qabteen Puntland waxa lagu dhaleelay inay martida kala dhaweysatay laba musharax ayaa si gaar ah madaxtooyada uga warqabtay warkoodana aad loo walwaday wasaaradaha si loogu sameeyo suuqgeyn balse in shacabku ay maqlaan magacyada musharaxiintaas waxa ay u ahayd waabaayo waana dhisihii hore iyo la dhisaha waqtigan sida ay hadba isku yaqaanaan madasha oo maamuus qabiil ay ka socotay waxa martida laga moosay inay matalaad ku yeeshaan gobolada Sool Sanaag iyo Gado iyo degmada Galdogob si cad ayayna madaxda heritage u diideen in dadka ay door iyo talaba yeeshaan marwo ka mid ahayd mas'uuliyiintii hore ee Puntland oo makarafoonka martiigsatay jawaab looma celin hoolka kolka laga dareeray waxa socday guluf ay garwadeen ka ahayn madaxda Puntland si ay madbaca dib u doorashada wadaadka u weyneeyaan mid ka mid ah kulamadaas oo xalay dhacana musharaxiintu waxa ay isla qaateen gaar ahaan garabkan in Siciidani hogaamiyaha Puntland isharaxidiisa uu shaaca ka qaado doorashadana dib loo dhigo ilaa bartamaha sanadkan Puntland iyo heritage waxa ay xakameyn kari waayeen rabitaanka shacabka ay ku diidan yihiin sida ay wax u socdaan waxaana hoolka laga buuxiyay ciidan iyo shaqaale hoosaadka xafiisyada dawladda maalmihii gabagabada shirka waxa lagu eedeeyay nin jeclaysi iyo sida uu sheegay xildhibaan hore Cabdi Barre Yuusuf Jibriil بسم الله الرحمن الرحيم شركة هلكان ka socday 3 maalmood waxa iiga soo baxday
inaan wax horumar oo la taaban karayn ka soo bixi karin sidii aan filayay iga muuqato maxaa yeelay shirka niman la yiraahdo heritage baa qalqaaliyay oo ayagu gobosha iyo programka lahaa gobosha halka lagu dhigay marka shirkaas waxa iga muuqatay heritage inayna sidii la rabay shirka inay u daadihin dad yar oo khaas oo ay soo qorteen oo ayaga maaragtay ay hoos kala soo hadlay horta inay shirki ku soo abaabuleen oo su'aalaha siinayeen dadkii su'aalaha weydiin lahaa oo muhiimka ahna dhagta loogu sheegay ninkaas waa mucaarada hasiinin horta waa nasiib sidaas oo kale saluugid maamuuska iyo shirku u socdo waxaa muujiyay qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha haya xilka Puntland ee Siciidani shirka waxay ka qayb galeen sidii Soomaalida caanka u ahayd in la isu yimaado la isu sacbiyo xaqadana aan laga wada hadal xaaladda Soomaaliya waan u jeednaa inay tahay xaalad aad khatar u ah dareen iyo walaac fara badan baa ku yani gadaaman doorashadii runtiina waxaan qabaa in aan weli si dhab loo wada hadal kanina waa Xuseen Cabdi Xaalane oo hore u soo noqday wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya haddana ka mid ah xubnaha musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynenimo oo la kala dareeray markii uu gaaray waqtiga hadalka maadaama xilli dambe la siiyay ولكن ماشي وابلغو كلا تجي بلاش بيقول له جويني يا عبد الكريم بيلتا ورمينا جاي تشوشي هذا ماشي اللي جو كلا تجي sidaas oo kale ciidanka dawladda ayaa loo kala qeybiye qaybo iyo beelo si loogu muujiyo inaysan ahayn ciidan qaran madaxweyne farmaajo markuu imaanayay ciidanka wuxuu kala saaray wax la yiraahdo teamkeena iyo tuugada wax la yiraahdo tuugada waxa kamid ah ciidamada deegaanka qaasatan shabeellada dhexe shabeellada hoose banaadir hiiraan ciidamada ka soo jeeda oo xureeyay xabadda ka bilaabay state house-ka afkiisa kuna geeyay xagga jalalaqsi xaqna baraawe ciidankaas waxa loo yaqaan ciidan tuuga ah oo mooryaana oo qabiila oo waxa shabaab sida loo dhaqmay si ka daran loo dhaqmayta ciidamada kale oo laga keeno gado galdogob meesha la yiraahdo buuhoodle caabudwaaq ciidamadaasna waa ciidamo qaran mid ka mid ah musharaxiinta ku sugan Garowe ayaa la duldhigay ilaalo uusan ogeyn kuwaasoo jidka ka leexinayay dadka booqanaya waana shaki cusub oo waji kale u dhigi doona dareenka shacabka isla musharaxan ayaa lagu badiyay booqashooyin ka socda dhanka dawladda iyo xildhibaanada si looga hor istaago inuu ololihiisa u madax bannaanaado doodahan iyo kuwa kale oo marka laga tago shirka heritage waxa uu u muuqday barbilowga olole siyaasadeed oo u muuqday in la isku karinayo ra'iisul wasaare ilaa madaxweyne maamulayaasha heritage-na waxa ay dadaal saarayaan sidii amarna aysan u khasaari lahayn